Karim Benzema ayaa daaha ka rogay saamaynta uu Ronaldo Nazario ku leeyahay xirfadiisa ciyaareed. Weeraryahanka reer France ayaa horumar ka gaaray kubadda uu ciyaaro Real Madrid sanadihii la soo dhaafay, laakiin wuxuu qirtay inaysan dhici lahayn haddii uusan jiri lahayn laacibkii hore ee Brazil. Wuxuu yiri sida tan: Ronaldo wuxuu ahaa mid aan ku daydo ilaa iyo yaraantaydii. Benzema ayaa sidaa u sheegay barnaamij ay qabteen warbaahinta Movistar oo ka howlgasha waddanka Spain. Asagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, wuxuu sabab u ahaa in aan bilaabo daawashada kubadda cagta. Waxaan daawan jiray dhaqaaqiisa, waxaana isku dayi jiray inaan sameeyo sidiisa oo kale. Laakiin ma jirin qof isaga la mid ah. Ciyaartoyda isku dayda qaar waxay lahaayeen xawaarihiisa, balse maysan samayn karin waxyaalaha kale uu ku samayn jiray kubadda cagta. Dadku waxay u maleeyaan inuu goolal kaliya dhalin jiray, balse wuxuu samayn jiray wax walba oo kubadda ku saabsan. Benzema ayaa sidoo kale ugu baaqay weeraryahanada kubadda cagta in ay bartaan sida wax walba loo sameeyo. Ronaldo Nazario wuxuu dhigay tusaalaha ugu sareeya kubadda cagta. Benzema ayaa ka hadlay wixii uu la kulmay waagii uu ku soo biiray kooxdiisa Real Madrid. Benzema oo shaaca ka qaaday wadadii uu maray muddadii uu la qabsanayay habdhaqanka kooxda Real Madrid markii ugu horeysay ee uu kaga soo biiray naadiga Lyon sanadkii 2009. Wuxuu yiri, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u saxiixo naadigan, laakiin maskax ahaan diyaar uma aanan ahayn wax walba oo la yimid saxiixa waqtigaas. Kooxda, taageerayaasha, cadaadiska, markii aan joogay Lyon maanan dareemi jirin. Waxaas oo dhan waxa iga ilaalin jiray madaxweynaha naadiga Lyon. Benzema oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, waa naadiga ku guuleystay koobka ugu badan ee Yurub. Waa naadiga weligiis haystay xidigaha ugu waaweyn Yurub. Aad ayay iigu adkayd gaar ahaan markaan keligay noqdo anigoonan ku hadli karin luqadda Isbaanishka. Sanadkii koowaad aad buu iigu adkaa. Sida aad dareemaysid kubadda markaad banaanka ka joogtid waxay ka turjumaysaa ciyaartaada kubadda marka aad ku jirtid garoonka. Aad ayaan u yaraa, mana garanaynin shaqada taala naadiga. Waxaan u maleeyay inaan ciyaar kaliya u tagi doono Real Madrid. Ugu dambeyntii waxaan dareemay inaan lumay. Benzema ayaa sheegay inuu bilaabay ka fakar ah inuu meel kale mustaqbal ka raadsado, laakiin taas waxaa bedeshay booqasho uu ku yimid madaxweyne Perez oo madaxweyne u ahaa kooxda Real Madrid. Benzema oo ka hadlaya Perez ayaa wuxuu yiri, gurigayga ayuu iigu yimid, weligay kumaanan fikirin inuu sidaas samayn doono. Markaan arkay waan iska ilaaway wixii naadi ahaa oo niyaddayda ku jireen. Waxaan u ballan qaaday inaan joogayo. Xiriirka kubadda cagta u dhexeeya Ronaldo iyo Benzema ayaa kaalin muhiima ka qaatay xilligii guusha ee Real Madrid, iyagoo ku guuleystay 3 Champions League oo isku xiga sanadihii 2016 ilaa 2018. Benzema oo ka hadlaya xiriirka saaxiibkii Ronaldo ayaa wuxuu yiri, Cristiano wuxuu u joogay kaliya inuu goolal dhaliyo. Sidaa darteed waxaan ku khasbanaaday in aan bedelo qaabka aan jeclahay inaan u ciyaaro kubadda. Waxaan gaar u dhigay rabitaankayga si aan Cristiano ugu sahlo inuu dhaliyo goolal badan. Benzema ayaa sidoo kale ka hadlay tababaraha hogaamiya Real Madrid oo horey u ahaa laacib u safta isla kooxdani. Wuxuuna yiri sida tan, Zidane wax badan ayuu i caawiyay marka aan ciyaarayo ama aanan ciyaaraynin, tan iyo intuu tababare ahaa ama xitaa waagii uu kaaliye u ahaa Carlo Ancelotti. Zidane waa uu na dejiyaa, mana nagu qayliyo markaan dhalino ama gool na laga dhaliyo. Ugu dambeyn, Benzema wuxuu ka hadlay fikirkiisa ku aadan in aan looga yeerin qaranka Faransiiska. Wuxuu yiri, waxay ila tahay in ciyaaryahan walba uu jecel yahay inuu ciyaaro waddankiisa. Sababta aan la iigu yeerin sharaxaad uma hayo ayuu yiri.
kolay waa amaro madaxda sare ka yimaadeen. balse waxa ii fiican hadda ayaa ah in aan diiradda saari karo kooxdayda iyo kubaddayda. Markaan arkay Faransa in ay qaaday koobkii adduunka, wax niyad jab ah maanan dareemin. waxaan isweydiiyaase maxaa lagaaga aamusan yahay? si kastoo su'aashaydu meesha taalo, balse noloshayda hadda waa Real Madrid.